guddoomiyihii halkan ka tegay iyo ninkii gala dagaalka iyo salaadiintii ku dhawaaqday dagaalka waxaan leeyahay ayuu idinla xumaan maanta dagaalkii marna taagtiin marna tamartiin marti edab daran ha noqonine edaab magaalada ku joogo Somaliland waxay diyaar u tahay inay cadawgeeda difaacdo ee gafane la yiraahdo sidii ina kablu qooqan yaho waa ninka dagaalka dhulbaanta hurinaya inkastoo in badan laga warsugayo dagaalkan lana dhagtana loo taagay oo la lahaa goormay soo qaadi doonaan ayaa ugu dambeyn la sheegaya inay diyaar u yihiin ku diyaarinayaan dagaalka ugu dambeeyay inay qaadaan maadaama dagaalkan uu horay u qaaday masana uu ballan qaaday madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo uu ku sheegay in xuduudkiisa uu soo ceshan doono kaas oo in muddo abo laga warsugayay inkastoo baraha bulshada uu ka soo muuqan in muddo oo haddaba ku dhow masana aan dhihi karno bil ka badan ayaa la sheegayaa inuu ugu dambeyntii ee dagaalka soo qaadi doonaan taas oo keeni karto burbur hor leh inay Khartoum State oo hadda rabtay inay isu soo aqoonsato masana haddaba ay ku maqan yihiin federaalka masana Soomaaliya federaalkeeda ay ku maqan yihiin in rabaan aqoonsi inay ka soo helaan xukuumadda madaxda marka ayada u xil saaran Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre oo ilaa hadda laga warsugayo ugu dambeyntiina rabaan inay aqoonsadaan Khartoum State oo ilaa hadda dagaalkeedii la filayo inuu si balaaran doono Muuse Biixi oo dagaalkaas qaadi doono ayaa la leeyahay dagaalka ugu weyn inuu qaadi doono ayay u egtahay maadaama ciidan badan iyo hub badanba og in badan uu keenayo oo hadda in bil ka badan hub badan iyo ciidan badan oo la tababarayay qaarkoodna sii joogeen ilaa haddana la keenayo oo aad u tiro badan kaas oo codsi badan geystay ilaa Djibouti ciidan badan ka keensaday ayaa la filayaa dagaalkaas inuu qaadi doono kaas oo jab weyn masana burbur weyn uu keeni karo si Khartoum oo hadda curdun oona rabto in la aqoonsado gaarna isku istaajiso inkastoo dagaal weyn ay soo gashay iyada lafteeda ee dhimasho badan ay ka caraftay dagaalkaas burbur badan ay ka soo gaartay ayaa la leeyahay inay rabeen goonu istaag ayna marka ayada ku haminayeen inay sidii Somaliland ay kan laftoodii masana ayna dhahday Puntland iyo Jubbaland oo kale ay ka laftooda inay meesha kala xirtaan dawladii federaalka Soomaaliya oo meesha ayadana ay lafteeda laga xukumo taas oo ilaa haddana ee hadafkeeda aad ay u rajo qabaan haddan uu ku maqan yahay oo aha halgankooda ugu weyna halgamaaga ugu weyna ayna dhahday oo ilaa haddana ku maqan Muqdisho lana filayana inuu guul la soo laaban doono Somaliland oo arrin ka duwan fikrad u haysto maadaama ayada lafteeda ay damacday inay ka hor istaagto aqoonsiga federaalka Soomaaliya ay aqoonsanayaan Khartoum State laakiin ay u suurtagali waasay haddana ay rabaan inay dagaal ku qaadaan Khartoum State oo gabi ahaanba ay burburiyaan inta xuduudka ay u haysteen ay ka qaataan oo ay dib u soo ceshadaan dagaalkaas oo la filayo inuu bilaaban karo daqiiqad kasto ayaa aad looga cabsi qabaa dhinaca kale oo ilaa hadda defense ku jirto ciidamo badan oo dhowr meel ooga imaadeen ilaa haddana ku jiraan filayaan mase diyaar u dagaal kasta oo dhinaca Somaliland laga soo qaado inay diyaar u yihiin oo ay u difaacanayaan naftooda inay u huri doonaan ummadii iyo dhulkii SSC Khartoum inkastoo Somaliland aad ay u xoog badan tahay oo dawlad dhisaneed oo ciidan badan iyo hub badanba in muddo 30 sano ka badan isku aruurinaysay ee loo babacdhigi karin dhinacaas iyo Khartoum oo hadda curdun oo dhalanayso ciidamo badan oo iska beeleed oo meelaha laga soo aruuriyay ee meesha ku sugan yihiin inkastoo oo dagaalkii ugu dambeeyay ay ka gacanta guusha ay soo gaartay oo ilaa hadda macbuus badan masana ciidan badan laga hayo hub badan dawladii Somaliland laga hayo oo gacantii SSC Khartoum ay ku jiraan oo ilaa haddana loo soo siidaanin ciidamo badan meesha looga hayo qaarkood laabaci iyo qaarkood caafimaad qabaan oo ku sugan Khartoum State ayaa la filayaa inay soo siidaan doonaan oo ay ka soo xoreen doonaan Khartoum State oo haddaba gacantooda ku jirto oo madaxweynaadkiisa uu si gabaabsanayo ayaa sheegay gacan qaadka ugu dambeeyay inuu ka dhigi doono gacan qaadkaas oo uu guul aad u weyn Somaliland uu u soo hoyin doono oo diyaar u ahayn inuu gacantaas ay marnaba masalan dhulkiisa marnaba uu fasaxi karin dhul kalena uu Soomaaliya ay leedahayna ay qaadan karin masana asagaba Soomaaliya uu ka soo horjooday in muddo in dhulka asaga ahaa ay si fudud ku qaadato inuu ogoleen ummadda Somaliland ay diyaar u ahayn taasna ay suurtageleynin uu ku sheegay intuu madaxweynaadkiisa u dhamaanin masana waqtiga doorashada la gaarin inkastoo ay muddo yar ka soo hartay uu sheegay inuu qaadi doono dagaalka ugu dambeeyay
uuna ku qaadi doono Khartoum State oo in muddo 9 bilood uu burburinayay uuna dilayay umaatadii meesha ku nooleed ilaa haddana ay meesha joogaan ayna ku dhiiradeen inay dhulkooda difaacdaan laakiin way u eg tahay inuu dhulka hadduu gacan u qaado ay burburi karto maadaama ciidan badan iyo hub badanba Somaliland gacanteeda ku jirto dhinacyo badanna laga soo taageeray Djibouti ay gacan koreysay haddaba lagu jiro in ugu dambeynba dagaalkaas la soo afjari doono oo Khartoum State magaceeda dambaba la sheegi doonin haddaba dagaalkaas uu ku dhamaan doona waa ka filaynaa dhinac kastaba defense bay ku jiraan dhinaca Khartoum oo ay ka laftooda dagaalkaas isku diyaar garoobayaan oo ilaa haddana ciidamo badan meesha ay ku sugan yihiin defense aad culusna ay ku jiraan hub badanna meesha uu ku sugan yahay dhinaca kalena ee dagaalkaas isku soo abaabulayaan oo ilaa haddana la filayo dagaalka inay soo qaadan karaan daqiiqad kasto oo hadda ka bilaabato wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh